faa'iidada ay leedahay in lagu xukumo qof kasta dembiga uu galay ciqaab u dhiganta. nin xaakim ah oo waddanka Mareykanka maxkamad gobolka Ohio ku taala xaakimka ah ayaa caan ku noqday inuu qof kasta oo dembi gala ku xukumo ciqaab u dhiganta dembigiisa, isla markaana faa'iido weyn u leh dadkii iyo gobolkii. wuxuu xukumay 7 dhalinyaro ah, wuxuuna ku xukumay inay 70 geed beeraan kadib markii ay gooyeen dhir ku taalay meelaha dadku isugu yimaadaan. sidoo kale wuxuu xukumay nin dhalinyaro ah oo oday da' ah garaacay ama gacanta ula tegay, wuxuuna ku xukumay inuu muddo 2 bilood ka shaqeeyo goob dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. wuxuu sidoo kale xukumay nin cajalad video ah ka xaday xarun fiidiyoda lagu sameeyo, wuxuuna ku xukumay inuu muddo 2 toddobaad ah hortaagnaado xaruntii uu ka xaday fiidiyowga isagoo waliba sitay board ay ku qoran tahay tuuganimadu waa shaqo xun. sidoo kale booliska ayaa u keenay nin dhakhtar caan ah oo gaarigiisa waday isagoo sarxaansan, kadib wuxuu kala dooransiiyey inuu muddo 6 bilood xabsiga dhigo iyo inuu jeediyo muxaadaro ka hadlaysa xumaanta iyo dhibaatada uu leeyahay khamrigu, waliba uu jeediyo dhalinyarta iyo ardayda dugsiyada. inaga dadkeena xabsi baa lagu ridaa, wax dhaqan celina looma sameeyo, laga yaabaa qaarkood inay ka sii daraanba oo sii falaagoobaan, wax xoogooda iyo maskaxdooda badanka laga faa'iideystaa ma jirto, wax dadkii ku soo noqdo oo wanaag ma jirto. xabsi baa lagu ridaa, moraalku baa laga sii dilaa.